qaatay amar ah inuusan ka soo hadli karin IT-ga shaarica daar casan uu yidhaa waxa haysid ha soo bandhigin aniguna afaarahaagaan kama hadlaye daahirow xaarkaaga iska qaso kulligan waan islaamay ummadda Soomaaliyeed meel baa joogtaan waxaa miiska noo saaran oo qalaynaa ninka iga dambeeya intiina badan ina taqaanaan baa laga yaabaa magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdinaasir Ismaaciil Soola dad badanna waxay u yaqaanaan Soola Bidaar wuxuu u qaabilsan yahay ummadda Soomaaliyeed IT-ga mise inuu ka sheekeeyo wixii la jabsado iyo waxa la jabsan iyo inay dhici karto iyo inaysan dhici karin maxay tahay sababta uu uga aamusay waliba kaaga sii daran bisha Ramadaan ee hadda dhamaanaysay bartankeeda dhinaca website-ka isaga daar casow waxa isku marinayeen hadallo dagaal baa ka dhaxeeyay Ramadaankii ayana hawshan bilaamatay muxuu uga aamusay hawshaas oo gacmaha kula jiro daar casow iscaynayaan dagaalkan hadda jira oo weyn muxuu uga aamusay inuu ummad Soomaaliyeed u fasiro dagaalkan wuxuu soo bilaabmay sida wada ogtihiin fanaaniin ka imaaday Somaliland oo Muqdisho timid ayaa daar casow waxa codsaday fanaaniin reer Muqdisho ah ay isku hayb yihiin in uu show u camiro xaysiisna u sameeyo dhinaca Facebook-giisa iyo social media si ay lacagta xooga siiyaan dad badan markay soo galaan taas waxa ka hor yimi Sharma Boy oo asaga Muqdisho sheegtay inuu yahay xidigeedii mise uu ka yahay madaxweyne Farmaajo magaalada Muqdisho asagana madaxa saartay wiilashii direed mise wiilashii saaqay Soomaaliland ka yimaaday waa meesha dagaalku ka bilaabmay Sharma Boy iyo daar casow si walbaba ha u dhacdee maxaa aamusiyay maanta anigu hadaad IT-ga ka hadlaayo waxba la jabsaday wax lama jabsan si looga hadlo ma aqaano oo maartay hore uma hadli jirin sidoo kale shaqadayda ma aha dadku uma aaminayaan shaqadayda ma aha si xitaa looga hadlo aad looga faahfaahina ma garanayo maxaa aamusiyay waa kana bisha hadda dhamaatay Ramadaan dagaalku bilaabmay Soola iyo daar casow iscaynayaan waliba sawirkaas soo dhigay daar casow sawirkiisaas soo dhigay waa ina ogaataan si walba oo dhacday wuxuu yiraahdaa sida waan soo dhigay waqsadooda wuxuu yiraahday sida aad ku aragteen baraha social media qaas ahaan Facebook iyo YouTube waxa bisha barakaysan ee Ramadaanka afka furtay daar casow oo dadka inta badan ay u yaqaanaan gudoomiyaha electronic isbaaro Cabdinaasir Ismaaciil Soola maalin walba oo bisha barakaysan lagu jiro isaga iyo kuwa magafe ka soo fakaday ay isku dayaan in sidii dadkii hore ugu biiqsan jireen online ay isku dayaan laakiin waxa ka raacday fashil aad u weyn iyagoo inta ay daaleen iska aamusay laakiin su'aalaha ugu badan ay la isweydiinayo waxay ahayd daar casow maxaa ka xanaajiyay okay showgan waxaan uga hadlayay musalsalka ee taxanaha waxay ahayd daar casow weerar ku qaaday aan la ogeyn cidna kama hadlin waxay u dhaxaysay asaga iyo intii daar casow ku xeeran sida Shiina Colay iyo raggaas ayaa wax ka ogaa cid kale wax ka weeraray oo ummad Soomaaliyeed looma soo bandhigin oo ma weynaanin maniraho ninkan leeyahay daar casow ayaa wuxuu u diray niman Raashiyana bahalka laga soo dhaxgali karo sidaba in intay jabsadaan waxa ku dhex jiro maniraho Cabdinaasir Soola Facebook-giisa in lala soo baxay telefoonkiisa WhatsApp-ka hadda ummadda lala isticmaalo waxay ka dhex raadinayeen bay ahayd ila fahataa waa meesha u socono 2018 mise 2019 bay ahayd Cabdinaasir Ismaaciil Soola xaas way kala tageen oo Dubai joogtay ayaa soo dacwootay waxay dhahday cunug baan u dhalay cunugiina waa igu inkiray igumana biilo waxa aad u bumbuunsay oo markaa ka shaqeynaysa hadda aan jeclayn wali ka shaqeyso gabadha la yiraahdo Amal Kayse oo ka shaqeynaysay Somali Cable TV la yiraahdo ay TV-ga ka sii deyso ilaa Somali meel baa laga daawaday Cabdinaasir Soola barka gowsaha dambo iska qabsaday waa aamusay dagaalkiisii waa la noqday ogaada meesha u socdo waa in la socotaan wuxuu daar casow rabay inuu ka dhax baarto nimanka raashanka loo diray Ismaaciil maxaa dhiraho Cabdinaasir Ismaaciil Soola telefoonkiisa waxa laga dhax raadiyay in la jabsado oo laga soo baxo waxay ahayd Cabdinaasir Soola wuu aamusay markii la ilo wuxuu diidayaa maadaama madax Soomaali ku xiran yahay uma Soomaali ee daawato qof mas'uul ah iska dhigo wuxuu cogdad iyo colaad u qaaday gabadha la leeyahay Amal
كيسة ما دام برياس جبدي سي حق الميسي صادقتي أو تي في عالمي كسي ديسي أصلي النفط كله شيء مركي واحد باللوبي أيوه وحو شبصدي فيسبوك يدي وحو صادقي أمل كيسة وحي صادقي وأنتي أركتي نينكي دي عرورتي دي دقة قانون أيوه صادقي wixii jabsaday oo bulshada soo gaarsiina waxa ay ninka leeyahay Ismaaciil Soola ayaa waxaan ka dambeeyay oo sameeyay sheekaduna halkaas ka waxaan u maraynayaa xoogay basawir ma helin qoraal lagala soo baxay WhatsApp-kiisa aan wali si fiican loo soo degsan wixii la soo dejinay waa la download gareysanay waa la wareegay ayuu ninka leeyahay Soola bidaar ka war helay wixiisina waa badashay wuuna ka hortagay wuuna difaacday daar casoo iyo raashiyaankii waxba kala ma wareegin kaliya wax yirisa oo masawir ahayn waliba qoraal ah ayay kala wareegeen marka Soola wuxuu hawshan uga soo hadli waayay ayaa nii sheegaya ninka leeyahay Cabdulqaadir Boos hawshan si uu socdo ogaada Cabdulqaadir Boos ayaa waxa loo dhiibay qoraaladii laga soo baxay WhatsApp-kiisa waxa loogu geeyay magaalada Turki waxa la weydiistay inuu lacag baada bixiyo waxa lagu yiraahday waxaana waxayna wixii telefoonku ugu jiray iyo ina adigu aad jabsatay amalkaysi oo adigu ay ahayd ninkii ka dambeeyay oo masawiradeeda ceebta ah social media soo dhigay waa inaad fahantaan marka inuu lacag bixiyay anigu ma sheegi karo waxaan ogahay inuu markii uu habeenkii uu horeysay uu masawir la galay ninka leeyahay Cabdulqaadir Booska uu waxna ka diiday uuna faanay inuu lacag leeyahay hotel weyn degan yahay dadkana tusi doono been bay noqotay ilaa hadda hotelka weyn dadka ma tusinin si walba ay noqoto Soola wuxuu qaatay arrin ah inuu ka hadlin arrinta IT-ga uu difaacin ninka leeyahay Sharma Boy iyo wixii dadka leeyahay hebel baa laga jabsaday Soola waxa la kala qaatay amar ah asagoo ka shikiyay in masawir laga hayo wuxuu qaatay amar ah inuu ka soo hadli karin IT-ga sharca daar casan uu yiraahdo waxa haysid ha soo bandhigin aniguna afaaraha aan kama hadlaye daahirow xaarkaaga iska qaso arrinta ugu weyn ay jirto waa halkaas uu la aamusan yahay ninka leeyahay Cabdinaasir Ismaaciil Soola waa nin IT xoolo wax ka yaqaano kana taqaasusay waxaan si fiican uga soo hadli jiray hadda wuxuu la aaminsan yahay intaas baahayd umad Soomaaliya ogaato anigu galabta live aan soo galay daar calasow aan ku tufay waxaan ugu tufay waxa ahayd arrintan ba wax ka ogaa daar calasow wuxuu ballan iga qaaday inuu isiinayo wuxuu ilaahay in ma bixin karno hawshan kuma siin karno hawshan waa hawl weyn oo maartay hawl la dhibi karo hadda ma ahan nacnacbi la soo aaday cabsidaas uu cabsanayo ay waxa rabay umad Soomaali inay aragto inuusan meel la jabsan karin ninkan leeyahay daar caso umada tusinayay cid kama jabsan karo wuxuu sheegayo waa wax loo soo xaday iyo qof kale oo aadmin ka ahaa iyo wax la gudbiyay iyo dad la khiyaaneeyay iyo dad aan mas'uul ahayn oo qof kale intuu aaminay wixiisi asaga ku wareejiyay sidaas uga soo dhaxgala mahane waxaagan waa gurigaagii cid jabsan kartana ma laha waxaan rabaa inaan ogeysiiyo umada Soomaaliyeed sheerta iyo like-ta igu dadaala waa mahadsantiin